Waxaan rabaa inaan ku tuso sida ugu samayn lahayd application CapCut Text Highlight sida midan oo kale. Hore aan soo furno application CapCut oo wada garanaysan soo furto ka bacdi waxaad soo qaadataan sawir ama subscribers. Aniga waxaan soo qaaday subscribers Abu Fallax ka bacdina waxaan raadsaneynaa colorka yellow ayaan hadda raadsaday. Colorka yellow telefonka dhacay midkan ayaan ka dhacay halkan ayaan ka goosanayaa hadda. Markii aan sidan ugu goosto waxaan saarayaa qaybta ay subscribers ayaan dul saarayaa. Marka aan subscriber dul saaro waxaan tagayaa qaybta ay ku qoran tahay splice ayaan tagayaa ka bacdina waxaan ka dooranayaa darken markii aan ka doorto waxaan raadinayaa haddana mask meeshay ku qoran tahay. Mask markii aan raadiyo hadda mask waa ka waan helay ka bacdi waxaan ku dhufanaysaa horizontal markaa ku dhufato geeska ayaa geynaysaa bahalkii colorka ka bacdi markaa geeskiisa waxaa ka dooranaysaa keyframe haddana qaybta ugu dambeysa geynaysaa haddana waxaa ka dooranaysaa keyframe markaa ugu dambeysa haddana waa kusoo jiidaysaa oo waa la ekaysiinaysaa isla markiiba wuu saarmayaa sida u jeedaan highlightska markuu saarmo haddana sawirka kale ayaan soo qaadanaynaa oo add overlay ayaan leynaa add overlay markaan dhahno sawirkii kale ayaan soo qaadanaynaa sawirkii kale inuu yahay Abu Fallax youtuberka carabka ugu subscriberska badan carabta wadamada carabta markaan soo qaadano waan jaraynaa oo google-keena midana kasoo degsaday google-ka ka bacdi markaan kasoo degsado waxaan soo qaadanaynaa isla colorkii yellow-ga ahaa ayaan soo qaadanaynaa sida midii hore unbaad yeelaysaa oo waxaad soo qaadanaysaa colorka markaad soo qaadato waxaad saaraysaa qaybta aad rabto markaad qaybta aad rabto saarto waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay splice markaad tagto darken ayaa ka dooranaysaa ka bacdina waxaad tagaysaa qaybta ay ku qoran tahay mask ka bacdina markaa qaybta maskiga tagto haddana markaa maskiga tagto waxaad ka dooranaysaa horizontalka ayaad marka geeska la geynaysaa isla sidii hore ka bacdi waxaad ka dooranaysaa keyframe markaad ka doorato haddana gaabta ugu dambeysa ee sawirka ayaad geynaysaa marka aad geyso haddana waad kusoo jiidaysaa muuqaalkan ayaad ku arki doontaa iska si daawada waan kuu sharxay oo muuqaalkii video qaybtiisa horena waa kusoo aragtay markii aan ku sameynay subscriberska waadna samayn kartaa isku day waxaan kaa codsanaya inaad channelka subscribe inoo saarto muuqaalkan ay noo qurxiso laakiin inoo saarto hada wasalaam waxaa inoo ballanaa muuqaalkan xiga insha allah.